طوبى لمن فهم المقاصد واستقى في قصة هي للمكارم تنتقى، أن الحياة تجارب ومواعظ، والنيل في طلب السعادة بالتقى، فاقرأ بها خبر الحياة السلام عليكم وعلى الخضار. قصدان mayn ahayn qaybta labaad, balse maadaama aad qiimo iyo qadarin naga mudan tihiin, qof ka mid ah walaalaha ayaa codsaday in qisadan soo horumarino. haddaba ku soo dhawaada qisada walaalahayga qaaliga ahow. waxaa la wariyaa in nin uu ku noolaa magaalada Makka al-Mukarrama. ninkaas wuxuu ahaa nin faqiira, laakiin Allah subxaanahu wa ta'aala waxa uu ku manaystay xaas aad iyo aad u wanaagsan, zawjad saalixad ah, gabar aan gabdhaha la mid ahayn ayuu Allah subxaanahu wa ta'aala ku manaystay. maalmaha ka mid ah ayaa waxay ku tiri, ninkaygiyow ma haysano waxaan cunno, sidoo kalena ma haysano waxaan xiranno. dabcan ninka caqli loo weeye waa uu fahmay, magaalada ayuu aaday si uu uga soo shaqaysto. magaalada marka uu tegay waxba waa uu soo waayey, shaqo waa uu waayey, lacagna waa uu waayey. kadib wuxuu aaday xagga baytulxaraam, kacbada ayuu galay, rabbigiis ayuu gacmaha u taagtay, Allah ayuu la xiriiray, Allah ayuu u aad sheegtay, Allah ayuu ka baryay inuu dhibaatada ka dulqaado, Allah ayuu ka baryay inuu faraj u furo. ducadii marka uu dhameeyay ayuu u soo baxay banaanka kacbada. markii uu soo baxay banaanka kacbada ayaa waxa uu arkay kiiskiibuu soo qaaday, waa uu kala furay, mas waxaaba ku jirtaba 1,000 diinaar. allahu akbar. ninkii si xad dhaaf ayuu u farxay, wuxuu la soo aaday xaggaasi xaaskiisa, wuxuu la soo aaday xaggaasi gacalisadiisa u keenay. arrintii ayuuna u sheegay, waxay ugu jawaabtay, celi ninkaygiyow, ma banaana in kacbada wax laga soo qaado, ee ku celi meesha aad ka soo qaaday. ninkii waa uu qaatay hadalka xaaskiisa, waa uu soo laabtay, waxa uu yimaaday kacbadii, mase nin ayaa banaadinaya boorsada. wuxuu leeyahay, yaa arkay boorso ay ku jirto 1,000 diinaar, yaa arkay kiis ay ku jirto 1,000 diinaar, yaa arkay. ninka waa uu farxay markuu ninkaas wax naadinaya arkay. wuxuu dhahay, anaa arkay, waa tani aho. ninkii wax naadinayay ayaa soo fiiriyey, cabbaar markii uu fiirinayay ayaa waxa uu ku dhahay, qaado, adiga ayaa lehe. intaas kuma sii ekaan, wuxuu dhahay, waxaa weliba la jirtaa 9,000 oo diinaar. ninka waa uu yaabay, sideesee wuxuu jiraan? ninkii wax naadinaya ayaa waxa uu dhahay, nin ka yimaaday ardu shaam, baladu shaam waxaa la isku dhahaa urdun iyo suuriya, aagaas ayaa la isku dhahaa. nin ka yimaaday dhulkaas ayaa ii dhiibay 10,000 oo diinaar. waxau igu dhahay, kun ku tur kacbada, kadibna marka aad weydo naadi. qofkii ku dhaha anaa haya, qofkaas waa qof aamine, 9,000 oo kale oo diinaar asaga sii. ninkii faqiirka ahaa halkaas ayuu faraj ugu furay. allahu akbar. maxaa ka wanaagsan inaad rabbigaaga gacmaha u taagatid? bini'aadanka walaal, markaad gacmaha u taagatid, bini'aadan markaad wax weydiisatid waa uu ku dhibsanayaa, laakiin Allah wuu ku sii jeclaanayaa. haddaba markaad wax u baahatid, xaajo markaad leedahay, bini'aadan ha ula tegin, addoon ha ula tegin, laakiin rabbiga ula tag walaal. assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu.